halkan waa garoonka Shongale Stadium ee magaalada Jowhar waxa ku aalmintanaya xulka maamulka Hirshabelle kuwaasi oo laga soo kala xulay gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe saakay waxaan u soo kulgalay ogaanshaha xaaladda guud ee garoonka iyo sida ay ugu aalmintanayaan xulka maamulka Hirshabelle waxayna muuqaal baahiyaha Bulsho TV qabanaysay laba naadi oo ku kala aalmintanaya labada daan ee garoonka xog ahaan si aan u ogaano xaaladda dhabta ah ee sababtay in labada naadi ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ka soo kala jeeda ay ku aalmintayaan labada daan ee garoonka Shongale Stadium ayaan u kurgalnay waxaana noo suurta gashay in aan haleelno xogta rasmiga ah ee sababtay in labada dhan ay ku kala aalmintayaan macalinka garabka gobolka Hiiraan macalin Kennedy ayaa telefishinka caalamiga ee Bulsho waxa uu sheegay in aalmintada labada dhan ay ahayn wax khilaaf ah balse ay tahay kala horeynta qeyrarka kala duwan ee aalmintada ee uu inoo sheegay in labada naadi ay ku kala horeeyeen isaga oo Bulsho u sheegay in naadiga gobolka Hiiraan uu kala yimid oo ahaa naadi mudaharaysna isla markaana diyaar u ah qayb qaadashada koobka maamul goboleedyada dalka runtii aalmintada saako kaliya ma aysan bilaaban aalmintadan waxay soo socotay muddo 3 bilood iyo bar ah subax walbana waxaan suurto gelinay in aan salaada subax markii la tukado wixii ka dhacay aalmintada bilaawno ilaa iyo haduu Ilaahay ku run yahay 2 saac subaxnimo ee aalmintaan hadduu wax khilaaf ah oo jiro aan ognahay ama aan khilaaf u aragno Jowhar bamaan nimaadin guryaheennii iyo reerkeennii inkastoo intan gurigeena ay tahay haddana magaaladeennii Beledweyne iyo gobolka Hiiraan intaan dad macnaha waxbarasho ku jiray waalidiin ahaa qaarkood waalidka shaqooyin macmal u ahaa intaan ka soo wadnay halkani maana keeneen haddii aan wax khilaaf ah oo Hirshabelle dhexdeeda ka jiro oo jiro anaga aan ognahay runtii anaga madaxa naga sareyso anaga macallimiin baan ku ognahay aniga haddaan ahay ama ninka kale oo saaxiibkay ah wuxuu asiga raadinayo waxa waaye guul oo u soo hooyay Hirshabelle ma ahan dan gaaro asiga leeyahay walaalkay waxaan aniga raadinayana waxa waaye guul aan Hirshabelle u keeno inta badanna waxaan baranay in labadan gobol looga faa'iideysto isla qabsi iyo wax lamid laakiin asiga hadduu guul keenana waa nin walaala oo loo arko haddii aan guul keenana waa caayilay labaduba waxaan u arkaa guul u soo hooyay Hirshabelle moogiye ana hadda wax khilaaf u ogsoonahay malaha dhanka kale muuqaalada kaamiradu ay qabanaysay ayaa muujinayay naadiga gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo cadadkiisu uu yahay naadi aad u far badan isla markaasina u diyaar garoobaya koobka maamul goboleedyada ee dalka waxaana arinkaasi si aan u ogaano la xiriirnay xogayaha isboortiga gobolka Shabeellada Dhexe Cali Hilowle kaasi oo inoo sheegay in naadiga gobolka Shabeellada Dhexe wali aan la kala xulin isla markaana uu jiro isbarbaryac aalmintada gobolka Shabeellada Dhexe taasi awgeedna ay tahay sababta ay labada dhan ay u kala go'een misna ay u kala aalmintanayaan labada daan ee garoonka mahad iska Ilaahay dina abuurtay oo xaqan uu abuurtay TV-ga Bulsho oo aad iyo aad ku soo boqday garoonka Shongale Stadium bahda sportiga waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad Bulsho TV waxaan magac ay wadato iyo bulshada dhex joogto inay si badiso ay hawsheeda lagu laabtaan rajayna insha Allah haddii maanta aan ka hadlo bahda sportiga Hirshabelle Hiiraan u soo diyaar garowday cadadka loogu talagalay xisaabteedii la tagtay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa u dhigan yihiin ayaga in cadadka loo yimaadeen markii labada cadad isku yimaadeen la isdhex galsho ay isla qabsadaan dowladda hadda ka hor anagoo Hirshabelle ay noo dhisneen ayaan ka qayb galnay 98 guusha aan keenay taariikhda ku qoran tahay hadda oo wada joognayna waxaan rajaynaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan markaas aan kala taabsanayno oo ninba laga keenay tuulo oo aan isqoonin waxay qabteen wala arkay haddana waxaan rajaynaynaa ka fiicna qabna dowladda garowgana ay wadaan xulka maamulka Hirshabelle ayaa ku soo aadaya xilli muddo dhow magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka Jubbaland lagu qaban doono koobka maamul goboleedyada dalka kaasi oo ay ku hardami doonaan ilaa iyo 5 kooxood oo ka soconaya maamul goboleedyada dalka ka jira Cabdifataax Ahmed Maclow Cabdifataax Zaki telefishinka caalamiga ah ee Bulsho Jowhar.